لما مقلي أتشيكينو عذر دار شدنا اللي كما أقبليه واجزيه وحاد فالجرتين وحونا الله عز وجل يري isagoo noo suureynaya shalaytida ay shalaayi doonaan xumaan falayaasha ee ku kalmay kuna saaxiibay ku caasinta alle ee ku kala tagay ku caasinta alle ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وحس ما لنت أوضالنكو ظلم فلع ججوباء مسلك حمان فلع إيا واحد لمده وخنيني دونا كعميسة وحؤران دونا هو جاي بل هدي أن الراعي لها جد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هو جاي بايي هدي أنا ولقي كدي قال لهم هبل صاحب وحود بهاني قبادي يوانبي قرآن كان كدي مركي أيتمي شيطان مر ولبا وهقربا آدنها وقت قباهد أي دباتبا ما لنت قيامها وحو قنيني دونا كا كد الميي نفسي سمعتي إيا فسق لبدي سقعموت عيل عاتو عاتبوا شليتي مرقو إيا تيران يا أوجد بل شليتي أوجد كما كان دونه فركليه إنو قنينه كما كان دونه دور قنينيوت أو كليه وحو قنين دونا لبدي سقعموت لكن سنسي درو وحو شلايي وقت أي شلاي تدو وحو ترين فرصدي واسيكتي وحبا ما تريسو هوغيي بقايي وحبا ما تريسو الشيغد وحبا ما تري دونان بريوتا وحبا ما تري دونتو اوياشا المدائي قوبي دونان وحو أران دونا الله محان أقادي وايجدك رسولك الله صلى الله عليه وسلم الله محان وادعي واي أمر كيسا oo uga joogi waaye wixii uu ka joogiri alla maxaan u dhowri waaye diintii alle ee uu la yimid rasuulkii alle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alla maxaan ula saaxiibi waaye akhyaarta ku dhaqanta quraanka iyo sunnada nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alla haddu alla alayhi dunidiina ku faajoonayay haddu baraarugay adduunkiina dhownaan bu ku sugnaa alla maxaan uga dhigtay hebel saaxiib maxay ما واحد سيدا وقتك صاحب كاجي ما واحد كقبلي نقاني صاحب كاجي يقعل كاجي قابتا سببت وامحي ما حايا لوحو إذا دوي القرآن كأي سنظة مركي أي إيمانين كدب الله وين محو صاحب كبري نقان دونا صاحبك ما لنت قيامها محو قعل كبري نقان دونا قعلك قابتا سنحدين تله wuxuu iga duway jidkii quraanka iyo sunnada markii ay yimaadeen wuxuu u dhawaa inuu qaado jidkii hanuunka adduunyadii wuxuu u dhawaa inuu ku tukado shanta salaadood ee faralka jamaacada muslimiinta masjidka wuxuu ku dhawaaday inuu xafido quraanka oo dusha ka wada qaybo fahmo ku amal falo wuxuu ku dhawaaday inuu ku adeeca Allah wax kasta oo uu amray oo ka jooga wax waliba oo alla reebay kana joogay laakiin saaxiibka xun baa ka lumiyay jidkii oo ka hor istaagay hanuunkii toosnaa markaaba wuxuu u kaxeeyay shaneemo baarar disco khaylaad sigaar cab qaad sukaan sigid aflaan firti la soo aweyn haween ajnabi ka ah oo ku yiri rugaha iyo acmaashan baa ka roon masjidka quraanka ahlu khayrka iyo wax la mid ah markaasuu ka siistay oo rumaystay oo beeniyay Allah oo doortay jidkii shaydaanka ee baas oo ka tagay jidkii raxmaanka marka wuxuu jazihiisa noqday shallayti iyo murug iyo tiiraay daran oo qalbigiisa la go'ay hadiina uu saaxiibka caaqahi oo maqlay saaxiibkiisa xun warkiisa oo ay naarta wada galeen waxa jira mid kale oo caaqil ah oo raacay jidkii hanuunka oo ku socda dib la'aan shaki iyo shubhad la'aan isagoo dhaxda marayana uu u yimid saaxiib xume oo ku yiri war ma waxaad rumaysanaysaa inay jirto janno iyo naar ama inay jirto abaalgud iyo ciqaab iska daa jidkan oo ku raaxaysta adduunka inta aad nooshahay wali dhalinyaro baa tahay laakiin soo qofkaasi aqli lowga ah laad buu ku qaaday saaxiibkaasi xun oo cagihiisa hoostiisa ka yaalay oo jidkaasi wanaagsan hayay ilaa uu ku janno tagay oo ku raaxaystay nicmadaha yaal oo la soo xusuustay walaalo kale oo ahlu jannaadka ah ayaamihii tagay adduunka iyo wixii dhex maray saaxiibkii xumaa markaasay isaga iyo walaaladii ahlu jannaadka ahi dhugteen naarta
markaasay arkeen isagoo salkeeda ku jira saa alluu mahdiyey oo ammaanay oo uga xamdi noqay badbaadinta uu ka badbaadiyey habowga oo uga shukriyey hanuunka wuxuu yidhi alla weyne isagoo nooga warramaya xaalkooda faaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaala qaa'ilun minhum إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم wuxuu ku soo jeesan doonaa midkoodba midka kale iyagoo si kalgacalo leh wax isweydiinaya midkood hadlaya baa odhan doona xaqiiqdii waxaan ku lahaan jiray rafiiq adduunka kaasoo odhan jiray ma waxaad ka mid tihiin kuwa rumaysan in iilka layska soo saari doono geerida dabadeed ma markii aan dhimanno oo aan noqonno ciid iyo lafo miyaa dhabtiina la soo saari doonaa si aan ula kulanno abaalgud ama ciqaab hadba siday ahaayeen camalladeennu ninkii wuxuu yidhi ma eegaysaa halka hoose saa wuxuu fiirshay hoos oo ku arkay isagii naarta bartankeeda wuxuu yidhi wallaahi waxaad sigtay inaad ihallifto haddii aysan jirteen nicmadda rabbigay waxaan hubaashii ka mid ahaan lahaa kuwa la soo xaadiriya naarta alla wuxuu ka warramayaa muuminkaa dhabtah inuu yidhi ma ahin miyaa kuwa dhimanaya dib dambe dhimashadayadii hore ma ahee oo ma ahin miyaa kuwa la cadaabi doona kadib markii aan galnay jannada run ahaantii tan baa ahliibaanta weyn waxaan oo kale camalfashayaashu ha u camalfasheen ma taas jannada baa martiqaad iyo maamuusid wanaagsan mise geedka zaquumka geedka xun oo ku yaal naarta xaqiiqdii waxaan u yeelnay isaga jarribaad ahaan daalimiinta mushrikiinta gaalada xumaan falayaasha iyo wax la mid ah xaqiiqdii waa geed ka baxa naarta dabka ah salkeeda fiidaha khaylalka midhaheeda waa sida madaxyada shaydaamada run ahaantii waxay wax ka cuni doonaan isaga oo ka buuxin doonaan urarkooda geedkaas dabadeed waxaa taa u dheer oo la siin doonaa biyo kulul si ay u cabbaan sidaa darteed waxay noqonaysaa isku dar biyo kulul iyo geedka suquumka urarkooda dhexdooda dabadeed intaas kadib xaqiiqdii noqodkoodu waa holaca dabka aan damin ah ee naarta korkooda waxaa ah naar hoostoodana naar waa ku gaajoonayaan markaasaa waxaa loo keenayaa geedka zaquumka ka qaraar sibirka qodxaha geedkaasina wuxuu ku dhegi doonaa cunahooda markaasay waxay dalbayaan sharaab si qaraarkiisa u dhaafo qodxahana u maraan kulkana ka damo markaasaa waxaa la waraabin saliid karaysa oo sida macdan la dhalaaliya oo kulula markaasay xiidmaha gogoonayaan cadaab loo geeya cadaab khaatimadooduna waa maxay waxaa loo celin naarta oladaysa qadadaas kadib waxay ka tegayaan miiskaas iyagoo u laabanaya rugtoodii nagaadiga naarta dhalintii nebi moxamedow haddii aad rabtaan inaad ogaataan tilmaamaha saaxiibada xun ka qaata qur-aanka wuxuu yidhi alla weyne jalla wacala waman khafat mawaasiinuh faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun talfaxu wujuuhahum annaar wahum fiiha kaalixuun alam takun aayaatii tutlaa calaykum fakuntum biha tukadibuun ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وكوا أي ميزان دا عمل ذو ونكسنه أيهين خفيف وكوا سكوا خسارة نفهوضة نار قدهود بي كواري دونان نار توحي قبي دون تاوجي يدودا دحدي بين كوقا يحمي دونان يعني ديرك أي هلبك كغدعي دونان iyadoo ay u dheertahay faruuriya dhacayo waji doorsan waxaa lagu oran doonaa soo aayadahaygii quraankani lidin ma akhriyi jirin oo ma aydan beenin jirin waxay oran doonaan habbigayow habaar qabadayadii baa naga adkaatay waxaanuna ahayn qoon habowsan rabbiyow naga saartani haddii aan mar kale u noqonno xumaan markaa dhabtii waxaan ahaan doonaa daalimiin mushrikiin khaa'imiin jujuubayaal gardiidayaal iyo xumaan falayaal iyo wax la mid ah wuxuu alla oran doonaa ku jira dhexdeeda oo ku dufooba hana ila hadlina idinku aniga xaqiiqdii waxaa jiray qaar ka mid ah addoommadayda oo oran jiray rabbigayow waa rumeynay ay noo dembi dhaaf oo noo naxariiso adigaa u wanaagsanee dhammaan inta naxariisata haddaba ma ka mid noqoteen kuwa ma qaadeen jidka ikhyaarta maye waxaad ka dhigateen jees ilaa ay idin ilowsiiyeen oo aad qosol iyo madadaalo ka dhigateen waxaad howl ka dhigateen ku jeesjeeskood ku qosolkood waxaana idinla gudboonaa inaad la jirkood noqotaan oo aad xustaan rabbigiin kadib jazaha maalinta qiyaama muxuu noqon doonaa innii jazaytuhum alyawma bimaa sabaruu annahum hum alfaa'izuun waxaan ugu abaalgudnay maanta wixii ay sabri jireen darteed inay iyagu yihiin liibaanayaasha xaqiiqdii waxaan ku abaalmariyey maanta wixii ay samri jireen darteed inay iyagu yihiin dhab ahaan kuwa ah liibaanayaasha waa sidaase saaxiibba xumayaasha noloshoodu waa jeesjeesid xayaatadooduna waa maaweele iyo madadaalo dunidooduna waa dheel iyo cayaar guryahooduna waa suuq iyo rugo turub iyo dumnad iyo qaad iyo heeso xun fadhigooduna waa qaxwooyinka caweysyada xunxun iyo wax la mid ah golooyinkooduna waa fisiq iyo foolxumo hadalkooduna waa waxamasho iyo duridda dadka iyo aflagaada iyo rayxumo sharaabkooda iyo cuntadooduna waa sigaar qaad daroogooyin iyo wax la mid ah waxaa diblahooda korkor mara qosollo dhaadheer indhahooda waxaa ku rogan caad dhaguhoodana waxaa saaran culays oo waa ka oodan yihiin dhegaysiga hanuunka indhahooduna waa qallalan yihiin laabahooduna waa arag la' yihiin garashadooduna waa guracan tahay qalbiyadooduna waa madow yihiin waxaad ka helaysaa golahooda wax waliba qur'aanka ma ahe carabyadooda wax kasta waad ka helaysaa ood kala kulmaysaa xusidda alla ma ahe waxay maqlaan codka xaqa aadaanka oo masaajidda ka yeeraya markaasay hormariyaan cayaarta iyo dheesha noloshoodu waa sida nolosha xoolaha bal xoolaha ka khayroon lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyanu laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaa'ika kaalancaam bal hum adal ulaa'ika hum alghaafiluun hubaashi waxay leeyihiin qalbiye aysan wax ku fahmin waxay leeyihiin indhe aysan wax ku arag oo waxay leeyihiin dhega aysan ku maqal xaqa waa sida xoolo oo kale maye weliba ka sii dhunsan yihiin kuwaas waa dhoohnayaasha warmoogga ah noloshoodu waa cunto iyo cabid dheel iyo cayaar iyo hurdo yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu alancaam waannaaru mahwan lahum waxay u raaxeeyaan nafahooda oo wax cunaan sida xoolaha wax u cunaan oo naartu waxay ahaan doontaa hoygooda ma garanayaan dhadhanka iimaanka iyo macaanka salaada waxay ka carareen boqorka alle iyagoo addoomihiisa ah gacantiisa ku jira allah weyn wallaahi waxaan la yaabaa maxay uga cararayaan isagoo ah naxariistaaga naxariis badan maxay uga cararayaan isagoo deeq leh baari rooraan badane ah muxuu ku sameeyey ilaa ay ku caasiyeen oo ayan u adeecin amarkiisa ma wuusan abuurin ma wuusan irsaaqin ma wuusan caafin
sidee bay uga cararayaan isagoo ah aljabbaar wax waliba ay hoos yimaadaan sidee bay uga cararayaan isagoo ah adkaabaha xoogga badan sidee bay uga cararayaan beedkiisa isagoo ugu yeeraya inay yimaadaan sidee bay qaxwooyinka iyo cawaysyada uga doortaan beedkiisa maxay u aqbalaan yeeritaanka shaydaanka tan allana ku diidaan maxay uga cararayaan kitaabkiisa iyo hadalkiisa oo u aadayaan heesaha iyo cawaysada xun iyo akhrisashada wargeysyada iyo majallaadka xun ma waxaa hoday dulqaadka dulbadanaha ma waxaa hoday deeqda deeqlaha ma waxay isleeyihiin aamin baad ka tihiin qorshaha iyo tabta alleh ma waxay isleeyihiin aamin baad ka tihiin argudashada argutaaga xoogga badan ma waysan ka baqeen inuu u yimaado malakal mowtku iyagoo ku jira macaasi ma waysan ka baqeen inuu mowtku u yimaado iyagoo dayacay salaadii ma waxay isleeyihiin waxaad aamin ka tihiin inuu alla idin qabto qabasho awoodle karaan badan ma waxay isleeyihiin waxaad ka tihiin aamin qorshaha iyo tabta alle isma yidhaahdaan waxaad aamin ka tihiin tabta iyo qorshaha alle waxaan ahayn qoonka daalimiinta dhallaankii maxamedow raggii abuubakarow ubadkii cumarow firkii saxaabadow u noqda rabbigiin oo iska dhowra naar iska dhowra jahannama waxaa hortiinna ah dhibaatooyin iyo arrimo culus waxaa hortiinna ah ama naciim ama naar waxaa hortiinna ah abeesooyin iyo arrimo murugsan waxaan ku dhaartay allaha ilaah kale oo xaq u ah uusan jirin isaga ma ahe waxba idinma tarayaan qosolada waxba idinma tarayaan doc iyo geesa ka xiiridda timaha waxba idinma